soo dhawaada qaybtii koowaad waxay noo maraysay midii kaashiyeerka joogtay oo ku qoslaysa hooyadii markii ay sheekadii uga sheekaysay. qosalkana waxay u raacinaysaa haddii aad go'aansatid inaad shaqo raadsatid ahtirishaaba noqon kartaa. kadib hooyadii midaan waxay weydiinaysaa oo intaas miyaad iigu jawaabtay kadib markii aan sheekadaydii oo dhan kaaga sheekeeyey. waxay ugu jawaabaysaa aniga wakhti mu u haayo in aan dhegaysto sheekadaada beebeenta ee alaabtan ma qaadanaysaa mise waa isaga tegaysaa oo waa xaraystaa. ugu dambayn ninkii odayga ahaya maamada wuxuu ku dhahaa lacagtan qaado, ayadana way ka qaadanaysaa wayna uga mahad celinaysaa wanaagga u sameeyey. xooga kadib waxaa subarmarketka imaanaya gabadhan kale waxayna aqoonsanaysaa hooyadii iyo gabadheeda. kadib intay gees ula soo baxday waxay ku dhahaysaa ma og tahay markii aad maqaayadda ka soo tagtay wixii dhacay. dhammaan dadkii kastamarkaaga ahay waxay aamini waayeen in aad maqaayaddii sidaas fudud ku xirtay maadaama ay aniga iyo adiga isku keenna yaqaaniin. marar badan aniga waxay ii weydiiyeen meeshii aad ka baxday. marka hadda ka waran haddii aad maqaayaddii dib ugu soo laabato weliba markaan anigaa kula shaqaynayo. maadaama aad adigu hadda uur leedahana shaqada inteeda badan anigaa qabanaayo. waxa keliya oo lagaa raba adiga inaad qabatana waa inaad ka taxadirto macaamiisha maqaayadda imaanaysa, inta kalena anaga nagu daay. iyadoo xoogaa way ka cagajiidaysaa inay arrintaas samayso, laakiin gabadheeda yaraa waxay dhehaysaa arrintan waa arrin wanaagsan, anigana maqaayaddaas waa u xiisay dib nugu soo celi. xoogaa kadib hooyadu way ogolaanaysaa inay maqaayaddaas ku laabato oo ay dib u furaan. asbuuc kadibna waxay u dabaaldegeen inay maqaayaddii dib u fureen. macaamiisheedii horena aaday ugu farxasanaayeen inay dib maqaayadda ugu soo laabato wayna soo dhoweeyeen. waqti aad u koobanna waxay ku guulaysteen in ay maqaayaddii dib u kala kiciyaan. ganacsigoodiina wuu u qarxay, xitaa maqaayadda kuraasteeda waxay ahaayeen kuwa buuxa mar walba. xoogaa kadibna waxay bilaabeen in ay dib ugu soo celiyaan maqaayadda alaabtii ayagu sida qaaska u lahaayeen. bilooyin kadib hooyadii iyo gabadheeda waxay dib ugu soo laabteen subarmarketkii ay gabadhu ku dhibaataysay. wakhtigaas ay meesha dib ugu soo laabanaysana waxay ahayd xilli ay gabadhii dhibaataynaysay ninkan. ninkii la dhibaataynayay ayay waxay ku dhehaysaa qoftaan hadalkeeda ha dhegaysan ee alaabtan waa qaadan kartaa anigaa ku siiyey. isagana waa kana aadu inta u farxo alaabtii qaadana ayadana wuu u mahad celina. midii subarmarketka joogtay intay yaabtay waxay dhehaysaa oo waxaad iska dhigaysaa qof meeshan iska lehe. iyaduna waxay ku dhehaysaa aniga ma iska dhigayo qof meeshan iska leh ee aniga iyo saaxiibaday ayaa meeshan si wada jira u gadanay. ninkii odayga ahayna waa kana mali iloobin ee waxaa laga dhigay ninka madaxa ka ah maqaayaddii. isaguna gabadhii meeshii joogto la dardaarmaa wuxuu u sheegaa inaysan dadka dhibaateen hadda kadibna ay ka fiirsato. iyaduna waxay taagantahay aniga oo walba shaqadan waa necbaay, haddana waa isaga tegaa, ugu dambayna meeshii isaga tegay. hooyadii iyo gabadheedana waa kuwaana iyagii oo macsalaameyna. muuqaalkan intaanu ku ekay hadda halkaas soo gaarta leegnoo saar. gabadhan yartaa iyo hooyadeed iyagoo hormaraya meeshaan cuntada fudud lagu gado ayaa gabadhii hooyadii waxay ku dhehaysaa cuntadan ma ii gadi kartaa maadaama ay dhalashadeeda tahay. hooyadu markii ay dalabka gabadheeda maqashay ma ka diidayso ee waxay soo aadayaan dhinaca ninkii oo cuntada ku gadaayey. intay u timaaday waxay weydiinaysaa cunada meeqaa gadoosaa, isaguna wuxuu u sheegaa inay $3 tahay halkii xabo. boorsadii markii ay lacagtii ka soo bixisay waxay arkaysaa inay $2 oo keliya haysata. kadib waxay ku dhehaysaa mid yarna sii. laakiin midkan wuxuu taagaya ma waxaan kuula ekaaday dowladaha dadka caawiya ord meeshan isaga taga. kadib iyaguna meeshii isaga soo tegaya iyagoo meeshaan wadada iska marayo ayaa ninkan odayga wuxuu ka codsanaya inay caawiyaan. waxay ku dhehaysaa waan jeclaan lahay in aan ku caawiyo, laakiin haddii la fiiriyo labadeenna adigaa lacag badan haysto. kadib odaygu markuu arko inay kuwaan isaga ka dar yihiin wuxuu ku dhahaa waan ka xumahay, gabadhana uurkeeda ugu hambalyeena. xoogaa kadib gabadhii iyo hooyadii meeshii intay isaga soo tagaane waxay imaanayaan subarmarketkan. kadib hooyadu kaarka dadka lagu caawiyo intay soo bixisay gabadhii meesha joogto waxay ku dhahay kaarkan ma aqbalaysiin, ayadana waxay taagan tahay oo dadkaas miyaad ka mid taha adigu. iyadoo hadalkeeda sii wadatay hooyadii waxay ku dhehaysaa ma og tahay annaga rafaad badan aan marnaa si aan u shaqayno, halka idinkuna aad gurigiina iska fadhiisatiin oo aad iska nasatiin, cunto firiina aad iska cuntiin, weliba annaka canshuurta aan bixinno. cabaar badan oo ay daldalmaysa kadibna hooyadii waxay u sheegaysaa inay kaarkan isticmaali karto oo ay aqbalayaan. ayagana markii loo sheegay in kaarkan la aqbalayo subarmarketkii gudaha u galayaan si ay alaabtooda u soo qaataan. xoogaa kadibna way soo dhammaysanayaan. intii qiimaha alaabtooda la xisaabinayana waxaa subarmarketka imaanaya odaygii waayeelkahay oo iyaga mar dhowey caawimaadka weydiisanaya. midii alaabta xisaabinaysa markii ay dhammaysay waxay u sheegaysaa inay $12 tahay. laakiin halkan xabo oo keega ma xisaabi kari maadaama kaarka aad wadato uusan awood u lahayn in lagu siiyo keeg. hooyaduna midaan waxay u sheegaysaa haddii ay sidaas tahay in ay alaabtan iska celiso oo ayna u baahnayn. laakiin gabadhii yareeda waxay dhehaysaa sidaas maahan, aniga keegan waa u baahana maadaama ay dhalashadeeda tahay. isla markiina odaygii waayeelkahay ayaa intuu u imaado wuxuu ku dhahaa lacagtan waa qaadi kartiin, keegiinana waa ku gadi kartiin. laakiin hooyada odaga waxay u sheegaysaa inaysan awoodin inay ka qaadato oo ayna uga mahad celinayso. midii kaashiyeerka joogtay intay soo booday waxay dhehaysaa qoftaan caawimaad ma u baahnay iska day, waxay wadato dhan friyay ku qaadatee. ma waxaad u malaysaa in ay uur leedahay? beenteed waayo waxay rabtaa inay dadka ku sirsirto si lacag fiican loo siiyo. in ay shaqaysatana ma rabto oo waxay ku tashanaysaa kaarka cashuuraadka. laakiin hooyada iyadoo murugaysanay kuwaan waxay ku dhehaysaa aniga waa shaqaysan jiray. sannado ka hor aniga iyo ninkayga waxaan kidhaysanay maqaayad weynan oo kala kacsaneed. dhammaanteenna maqaayaddaas si wada jirahaan ugu wada shaqay jirnay, waxaana aad ugu wada faraxsanayn dhammaanteen maadaama uu cunug kale inoo dhalanayo oo aan 4 noqonayna mar dhow. hamiin
habeenada ka mid a ayuu ninkaygu guriga ka tegay si oo maqaayadda u aado laakiin xoogaa kadib guriga waxaa noogu imaaday nin boolis ah wuxuuna noo sheegay inuu shil gaari ku dhintay habeenkaas kadib aniga iyo gabadhayda waxa noo furnaay oo keliya waxay ahaayeen in aan murugoono maalmo kadib waxaan awoodi waayey in aan aniga keligay bixiyo maqaayadda kirideeda ugu dambeynna waxaan go'aansaday inaan maqaayadan iska joojiyo alaabtaydii oo dhanna waa ka qaatay haddana waxaan awoodi waayey in aan guriga kiridiisa bixiyo kadib waxaan bilaabay inaan iibiyo alaabtii taalay marka aniga hadda wax walba waa haystay laakiin waxaas oo dhan way iga lumeen ninkii odagahay gabadhan sheekadeeda markii uu maqlay wuu u tacsiinaa laakiin midaan waa tanaa wixii oo dhan boqosolay ka dhigatay